إن شاء الله تعالى برنامج كنا بالعبرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم أما بعد walaalayaal maanta waxaan isugu nimid meeshaan horta gogoshaan waxaa idin dhigay dhalinyarada macnaha garfuul 39 garfuul youth Somali community waxayna u dhigeen dhammaan macnaha maxay ahayd odayaasha dhaqanka haweenka aqoon-yahanada xafladii maanta waxay ku saabsan tahay inaan taageerno go'aanadii ka soo baxay odayaal dhaqameedka shirki ay qabteen inaan ayidno haddana waxaan ku soo wareejinaa gudoomiyihii guddiga fulinta gudoomiye ku soo dhaw bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah walaalayaal waxaan maanta halkan iskugu nimid arin ah ayidaad oo aan ku ayideyno shirkan baaqi ay soo saareen odayaashii dhaqanka ee Muqdisho beesha mursade karan leh sorry baaqaas aan ku ayideyno go'aankii ay ku gaareen shirki ugu dambeeyay ee ka dhacay hotel Jazeera shalayto ay ahayd sabti waxaan baaqan nala qaba Europe inteeda kale oo ayagana bilaabay inay ka jawaabaan midda kale waxaan anagana aan maanta halkan isugu nimid inaan si kama dambeys ah aan ugu xoojino aan ku taageerno odayaashii dhaqanka ee Muqdisho in aan la qabno go'aankii ay dawladda kala noqdeen kalsoonida sida gudoomiyuhu u sheegay iyo guddigii qabanqaabada isu imaatinkeena maanta halkan aan isugu nimiday wuxuu ku salaysan yahay in aan taageerno oo aan garab istaagno go'aankii ka soo baxay guddiga sare ee beesha karinle ee Muqdisho Soomaaliya anoo marka magacaas isticmaalayo waxaan rabaa inaan dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay ugu horeeyaan maartay madaxda dhaqanka gudoomiyaasha maartay magaalooyinka iyo gobolada gabdhaha maartay ilaahay khayr ha siiyo markastaba isxilqaama iyo inaan maartay guud ahaanteen karinlaha degan UK meel kasta ka yimiday inaan horta idin soo dhaweeyo idinkoo mahadsan safarkiini iyo socodkiina aan kaga mahad celiyo aanan baaq oo ku saabsan arintaasna aan ka dirno ah inaan taageersanahay go'aankii wadajirka ahay oo ay ku gaareen magaalada Muqdisho siyaasadda hoggaanka beesha oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada ay ku xigaan hoggaanka dhaqanka ku xigaan ururada bulshada ee beeshu ay hormoodka ka tahay iyo dhammaan dadka waxgaradka ah ama aqoon-yahanada ah ee intay isku yimiday shiray go'aan soo saaray ah in ay kala noqdeen kalsoonidii dawladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud kadib samir badan iyo dulqaad badan oo muddo 2 sano ay soo samraayeen kadibna ay garowsadeen in aysan horumarna gaarsiinin dalka Soomaaliya wanaagii laga sugayna aysan suurto gelin karin go'aanna ku gaareen in aysan wixii hadda ka dambeeya la sii shaqeyn dawladdaasi sababtoo ah inay ceel ku sii dhacayaan qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa dadkii ilaahay weynay ee khalqay ee untay waxaan kala u mahad celinayaa dhalinyarada ragga iyo dumarkaba leh ee gobashan quruxda baan soo agaasimay waxaan haddana mar saddexaad u mahad celinayaa dadka waqtigoodii qaaliga u soo huray ayaan u mahad celinayaa intaasi kadib waxaan leeyahay haddaan nahay beesha guud ee karanle waxaan ayidsannahay oo aan ayidsannahay oo aanaan ka noqonaynin
haddaan alla ma aha dhihinin go-aankii ay gaareen beesha 3 ee degta xamar iyo caalamka meel walbaba degta waxay qaateen go-aankii ahaa in ay kala noqoto dawladda ay kala noqdaan kalsoonidii ay shalay ku doorteen waxaa kaloo rabaa inaan sheego fariin ay soo fareen guddigii shalay ku jiray magaalada muqdisho waxay yidhaaheen waxaan qaadanay go-aan cad ayaan qaadanay waxaan idinka codsanaynaa dadkiina jooga dibadda gaar ahaan magaalada dalka la yidhaha London dadka jooga in ay sidaan annagu go-aankaan u qaadana u qaataan saan u mudownina ay u mudoobaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya beesha karanle ee wadanka qaaradda Yurub iyo America magacooda waxaan taageeraynaa odayaasha Soomaaliyeed ee magaalada xamar ku shiray oo beeshayna u dhashay oo kalsoonida kala noqday dawladda Xasan Sheekh maanta kalsoonida la noqon waxa uma tarayso ummadda Soomaaliyeed ee la dhageysanayso waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan sababaha keenay dawladda Xasan Sheekh inaan kalsoonida ka noqon waxa kamid ah in xuquuqdii aan ku lahayn dawladdaas Soomaaliyeed aan ka weynay muddo 2 sano ah waxa kamid ah dhulkayna iyo dadkayna in bartilmaameed laga dhigo oo shabad lagu dhajiyay oo la yiri wiilasha dhalinyarada shabaab ayay la shaqeeyaan qolo aan shabaab dad ku lahayn male oo Soomaaliya annagana qolooyinkaas aan kamid nahay shakhsiyaad oo kamid ah deegaanada aan degannahay maalin kasta gabdhaha la kufsadaa dadaa la dhacaa wiilala inta guryaha lagala baxo inta xabsida la geeyaa la gataa asaa maalinta ku xigtana la soo deeyaa ayagoo lacag lagu soo deeyay namana qabato beelo Soomaaliyeed oo dagaalamay oo xamar ku dagaalamay oo wali wixii dhex maray aan ka heshiinin in hub la iskugu dhiibo daraas dawladeed inta loo galsho hal qabiil ciidan gaas ah ama guuta oo hal qabiil ka kooban macal taliyahooda in dhulkayna la dul dejiyo yeeli mayno waana diidnay ummadda Soomaaliyeed oo na dhageysanayso annagu waxaana curadkaawiye waxaana dadka magaalada Muqdisho oo looga yimid haddii dawlad annagu ma diinid qaran diidna ma nihin al-shabaabna ma nihin mursadana la yiraahdaa waxaan degnaa Soomaaliya 3 gobol oo muhiim ah oo aan qaybaha ugu waaweyn ka nahay 4 gobol sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cidii arrintan dhageysata in ay xaqayna qoftaana nala dooni karin ayna nabad geliso ay safarta nagu fiiqin annagu al-shabaab ma nihin xasaskana waa ka diiday wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو كهلا مجا قدومية بيش مورسة كارل بريستول كان مترسم وكيلنا كشعب كان دقن بريستول سدح يستقال كارل وحن تاجر بوحدة سيد أضياشي يا غيرتي جوه رئيسي مش كشيء عن تاجر بوحدة وحسيمي جو أنك عقاتين سياسيين تا اللبنان أضياش دقنك دنيا هوينك كنا طلق Soomaaliya meel kasto 3 karala murso joogna taageeradaas la taageen anaga ama tusmeeyna sida awgeed waxaan kalsoonida kala naqanay dawladda ku meel gaarka ah oo hogaamiyo mudane xasan madaxweynaha dawladda federaalka ee hogaamiyo mudane xasan sheekh maxamuud kalsoonidii waa kala naqanay shacabka hadanahay mursada ee karale meel kasta ay joogto gabar iyo wiil meel alle qaarada adduunka meesha ka joogaan halan nahay waa madeysanahay جاليات مسجد سجال يسوق من ناجح ورئيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين السلام سلام كدي إن عدك تاجردا إن أقويان كنا يحل بنا ديني يو وسير ديني إن يودياشين يقويان كني مقدس كون ولاي أوجو عنصري دولة أو حسن شيخ هرمود كياهي إني كلسوني ذا كلام نقدان ولا له يجوه الرئي يكوي حمر قوانك كوكاران لقبنا وحنا عدينا ون سد حيا سجال جالية أو دبدا كنا عدينا إن كلام نقولنا كلسوني دي دولة حسن شيخ هرمود كويا أنت وحنا قبحيا
akhyaartii iga horeysay oo hadalka sheegtay iyo kuwii hore u sheegay taageerada xasanow beesha 3 ee maanta kalsoonidiisay dibadii gudo ku joogaanba kaala noqday aan rabaa sababaha ay kaagala naqdeen inaan kuu caddayno talana aan ku siino sababahan kalsoonida kaagala naqnay waxa waaye markaan fiirino dowladdaada awood yarideeda eexdeeda waxqabad la'aanteeda horumar la'aanteeda corruptionkeeda يعني waxyaabaha ay ku shaqaynayso waxa jaariyadu u cuntami ama 3 u cuntami waayay waxaan waxtar lahayn inay taageeraan inay dawladahan u dhowrtaan inay adiga madaxweynenimo ku ictiraafaan arrintaas ayada ah ayaan ku diidnay haddaan nahay 3 dawladdaada waxaan kugula talinayaa inta goorta oodan adduun kuna ceeboobin aakhiradaada adduunka aadan ku weyn iska casil waxaan leeyahay Soomaali weyn Soomaaliyey dalka annaka iskale Soomaali baale duul kale ma laha annaga la ka rabaa inaan dad u naqano annaga la rabaa inaan dawlad caadil ka dhashano annaga la ka rabaa inaan cadawga ka cishano annaga la rabaa inaan dad u naqano annaga la rabaa inaan ilaashano annaga la rabaa nacfiga ku dhex jira inaan cunno annaga la rabaa inaan gumaysiga ka celino annagu haddaan nahay 3 dawladiin ma dawlad ku nool baan nahay Soomaali weyn la hadlaaya laakiin waxaan diidnay nacasnimo waxaan diidnay maamul xun waxaan diidnay quursi waxaan diidnay hadal xun waxaan diidnay dawlad daciif oo corruption oo dadka kala qaybisa dadkan isku dirta waxaan dariiqa dheer u taaganahay oon diyaar u nahay oon xoog diyaar u lanahay oon xoolo diyaar u lanahay oon maskax diyaar u lanahay dalka Soomaaliya dadkii dad u ah ee dawladnimo raadinaya ee daacad ah ee dalkaas raba in la badbaadiyo ee dawlad caadil la keeno numberka koowaad aan ka nahay waa Soomaali weyn waxaan hadalkay ku soo gabagabaynayaa Soomaaliyey Xasan Sheekh dalka waa dhiibay gumaysiyoona geliyay haddaan hadda laga qabana waqtigan ka xun tahay oo gumaysigu xididaystay ayaa dhacaysa annagoo ooyayno calaacalayna inaan dalka cadow la yiraahdo lagula diro dalku waa gacantow ka baxay Soomaali weynay dalka iyo dadka aan badbaadino Xasan Sheekh waxba meesha kuma haayo mana ku haydoono cid lagu halaynayo ma jirto aan isu nimaado aan hadalno dalka iyo dadka aan badbaadsano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن المروين بحين سجدنا يا سلامة الإسلام كان سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما هتنتهي باشكر الله لحي لواتنكي بشي لوات 2014 كا باشكر الله أنكر لنا قرفور مرصدة waxay kala noqotay dawladii oo hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud kalsoonidii annagana waxaan maanta madasha u fadhinaa inaan kalsoonida aan kala noqono hadii ay leedahay beesha kala leh ee mursade deegaanada annaga aan deganahay 60kii airportka international aadan cadde waxa la dhihi jiray buulaxaan shoolay لها داينيله odayaasha mursada ayaa ugu deeqay waa dad dawladnimada gaartay maanta jaamacadda aad ka soo baxday iyo mas'uuliyiintii waaweyn ee maanta dawladda ay wax baratay jaamacadda Gahayr waa dhulkii aan deegaanada annaga aan ku lahayn awowayaashan ugu deeqeen 60kii waxa la gaartay annaga dawlad annagoo raadinayno dawlad
nimo inaan maanta aan meelaha caanka ah maanta Soomaali ku antifaato inaan anaga siinay marka waxa ayaan dara ah ummad jirta ee Soomaaliyeed ee curudyadii hawiyaha inaad dawladdaadi iska dhex aragto marka waa ayaan daro waxaan leenahay ummadda karalana waxaan leenahay meesha ay ku socoto dawladda wad garanaysaan inta dhimanna waa wax yar oo gaaban dawladda iyadaaba iscasilaysaba marka intaasaan hadaladeedii kusoo koobaya meel walba oo karala joogana maanta intaasay diyaarinayaan السلام عليكم وعندنا واحنا عمل قضياشيني تولكي وحان ليا حسن الشيخ دلال كيسا مؤمن يسنى رون من نقطع حق إيا حوله إيا مسكع يا عقلي وحان ليدهين يسوك كان صدر وعن انت اسكو دريا قبل كدبرانتي حسن هذا وحلا يشتغل ويل دلو مال تكسو قبسده وحوري كوحجانكس أفراد عطاية أو قبلك يلي مينو قبلك براندي بريورتك كوبات الدان وينو كان لبعض عن لنا كوبات الدان وينو وأنا لبعض نقول وأنت أصدر أو كوبل كوسيفوبي وبيلو قفك هدو بيلو يا قف مسلم بينو كم صورة قش أحد الله ويوا بالله ما دور لك على بيشان marka hore balanto la galana ma fulin to wada la galana ma uusan fulin Soomaalida waxay ku maamaadaan saddex walxad qofkii kugu sifeeya isma seegtaan waas ku seegtaan sabarkaada ninka doqonnimo u qaad sadaqadaada laaluush sawdkaada been qofkii intaas kugu sifeey waaba mid la isku seego xasan sawdka sabarkeena doqonnimo u qaatay sawdkeena been u qaatay yeeli ma karno hadda ka bacdi سدع يا سجال وحان أقول باقية دولة حسن شيخ ويليا قبر وحو رباعه قف لو مقعاوة جاغو أو قادة كرتاهي مجلس قف كي قاطة وانو دقال حسن شيخ من لو لجوبة وانو قالوا لي وما سنتين الله يعيسك شرفت عاد ماشي اسوق التمدين دادكو بنانكو تاغان يحي هول كان نغو يرااداي وما waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka beesha murusada karanle wixii kalsooni kala noqosho ahay ama hadalka muhiimadiisii ama hadduu ximin iyo xaragal ay horaa loo yiri waxaan rabaa oo kaliya aniga inaan caddeeyo ما ده هاي بريسيدنت ما هم وبريسيدنت لا دورتي حسن شيخ محمود يوم الحين هذا الصومالي لكن الحين ده عادل ما وهر حد ما كسوري ده لوصل رئيس 6 سنة كهرة بخلال نقضي بوحان إذا هذا الشيء ويجي هالمعلم طبعا هالمعلم أن كإلي الدولة نقول يسوع يدي دومان الشيء وحن وشيء وحواي waxay markay ku bilowmaan xaraan ay ku dhamaadaan marka hore waxay ku bilowdeen waxaan laaluush tuuganimo Soomaali nacayb islaamnimo nacayb waxaas wax la soo aruurshay meesha horta dowlad laga dhigay marka alxamdulillah waxa in dad kulligood hadda ay wada fahmayaan marka aniga waxaan rabaa inta kulligood حسن شيخ كلية ما هي دولة دي سي ضد بدن وديان كين جريتان كين نوع واحد بيقيل كجرو ما هي هذا ضد كحلين واي محايد كم قنبة قول أنا واسكت جوكتان محل عبادي صار ما ضد خارج ساسا بكلهم بوا دول كان كود دقن واي وكان هولو ذاك دقن على إسكالة هذا على إسكالة وديقلي على إسكالة ما فهمت هي ما ناس مو جالسين سد حدا حافظات وين إلا يدين إلى يقول كفرا dadkii oo hadda taan yimid oo deganaa oo cusub 20 sano ku joogay waxaas yaa waxa ku leeyihiinba waxa ka hadli kartaa adiga hodan waa aragteen kadib waxa ay dhiiraha waxaan ciyaar ha u maleynina ma fahanti hadii ciyaar muddo dheer aan ku soo jirnay riwaayad
dhulkiina iyo deegaankiina ma wax dembi ah ma aha qofna annaga colaad uma wadno qof kale dagaal lagulama socdo war meesha aad deganeed oo awowgaa deganaa nin shalayki iyo meelahaas inuu dhaho anaa kugu xukumaayo Soomaali 22 sano waa diiday waxaas cid yeelaysa Kismaayo waa laga yimid baydhabo saas loo xukumi jiray waxweyn kuwaan marko jinni jaari ma fahanti xawaadna saas hiiraan wixii qof walba meeshiisii hore nima waxaan leeyahay xaafadihiina dadka magaaladii ka timaadeen dadka islaameed ee ku xukumayay iska diida dadka waa diideen Soomaaliya nin walba meeshuu ka dhashay isagana xukumo waa ay taasoo ku soo waxaan ani waa horaan u jeeday inay ciyaar tahay sababtoo ah hadii hodan iyo howlwadaag ani leeyahay xukumayo iyo waligley قبل إمحام الشكتاوي الدقموين كابي يقدر بارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وعلى ماشان سوون مذي إن أنت تاجر بوحدو يعد كرلو على كل شغله إن أنا كنت تاجر إنه قانكي أي كو قاتين صديق لاتن كبيشة فبراير لو نكون يعفر تبانك وضياشني وحقرت كني سياسيين تاني علماء تاني وباسيدي قوان كاسو ها إن حسن الشيخ أي كلا النقدان دولة ديسا كالسيوني ده قوان كاسو ها قوان مدد لقصو مارتاي باران دقي على فلوانين وقليه سلبديي هل سنة بري دولة حسن الشيخ جرتا انت اسمارتاي وحا دراسات لو سميناي حسن يدولة ديسة السياسة ديسة فضية بدن على الجلي كدب مركل السمي قوان خاص مارتاي فضية راس بدن وحل أوجادي حسن شيخ وضده وكوس على من سنة وضد الصحة مركل لقاه الله يا مام الله الصومالية جودهن جارهان قبل كبنادر يدك ديجانك يدك الرير مقدشو قاصة بيش مرصدة وجاب حي قوانو أي سلا جارين oo ku saabsan maamulka magaalada Muqdisho taas waxa waaye go'aankaas ay qaateen dadkeena iyo siyaasiyiinteena iyo culimadeena iyo dhammaan oo maanta rabno inaan maaragtay taageeradaas ku muujino inaan hadaan nahay diaspora qurba joogta North America iyo Europe inaan ku raacsanahay siyaasiyiinteenu talaabada ay qaadeen aan maaragtay garab taaganahay waxaa soo haray Soomaalida nala degta waxaan rabnaa inaan fariin durno waxaa jira Xasan Sheekh iyo maamulkiisa in la tijaabshay hal sano bar 2 sano oo cagta sii saaray wada qaldan inuu ku jooganayo Soomaalidu ay aragtay badankeed saas awgeed Soomaalida waxaan rabnaa inaan u sheegno maanta in wadada qaldan ee Xasan Sheekh ku joogo ay dhamaantood ka wada hor yimaadeen si loo helo maamul wanaagsan in laga dejiyo Xasan Sheekh maamulka oo loo raadiyo madaxweyne cadaalad oo ummadda wada wanaagsan iyo maamul wanaag horseeda qodobka Soomaalida ku saabsan hadaan inta uga gudbo waxaan u gudbaa qodobka saddexaad oo ah international community-ga dawladaha dariska United Nations-ka AMISOM iyo dawladaha taageera Soomaaliya dadaalkoodii iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii iyo xooggoodii waxay ku socdaan meel qaldan Xasan Sheekh meel qaldan ku sameeyay Soomaalida isku la diray waad ogtihiin Soomaaliya dagaalaha ka dhacay koonfurta Soomaaliya meel kasta la isku leenayaa dhibaato ka jirta waxaan u sheegaynaa United Nations-ka AMISOM maartay jaamacatul arab Soomaaliya dawladda hadaneeya hal laga joojiyo Xasan Sheekh taageerada ilaa dawladdiisu ay siyaasad wanaagsan la imaanayso وإن سلام أخياتي محوها علماتين كسياسيين محوها قضياش باشا ومش كل ماي waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay maaragtay beesha ay go'aan adag ay gaartay qof walba wuxuu ka hadlayaa maamul gobol iyo adduun iyo muxuu ahaa xagga siyaasadeed ama muxuu ahaa eexda lagu sameeyay laakiin waxa aad ii taabanay oo marar badan aan ka hadalno waxay tahay gabdhaha la xoogo aanan dawlad aanan ka hadal xildhibaanada beesha misalana aynan ka hadal dadkiina lagu leebel gareeyay maxay toole inay yihiin shabaab cid ka hadasha aanay jirin meedadka meelaha kale lagu soo dilo guryahoodii la horkeenay hooyooyinka ilmaha yaryar ee dugsiyada iyo muxuu iskuulaadka aanan aadi karin albaabadooda markay furaan ay arkayaan meedad meelaha loo soo dhigay
askar maalin joogto dadka qabanaysa xirxiraysa cidna aanan ka hadal sida walaalka hore uu sheegay shukri beel aanan ku jirin ma jirto muxuu ahaa qolahan shabaabka waa ideology qayb naga mid ah haday taageertay annaga gabi ahaan ma wada taageersanin marka in waxaana hubaal ah in beelaha qaar ay nooga badan yihiin oona laga hadal madaxweynaha laftirkiisa meesha uu ka yimid deegaanka uu muxuu ahay tirsado inay ka shaqeeyaan laakiin haddana weliba la taageero laakiin beesha meeshay degto la yidhaahdo hotspot aanan taageero iyo waxba aanan siinin ay ka mid tahay cadaalad darada maanta ay ku hayso marka waxaan rajaynayaa insha allah go-aanka ay qaateen muxuu ahay tolka inay xoog saaraan especially gabdhaha muxuu ahay xoogay aan cidna aanan ka hadal iyo dhibaatooyinka hooyooyinka haysato waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan beesha mursada karanle ee ka soo qayb gashay baaqan maanta aan ku ayidinay odayaasha beesha mursada karanle ee muqdisho run ahaantii caawa ma soo koobi karno waxyaalihii aan ku falanqeyna halkan waan idinkaga mahadcelinayaa dadkii ka yimid gobolada dhaadheer ee run ahaantii safarka intaas la eg u soo galay in ay ku taageeraan codkooda iyo maskaxdooda iyo fikradooda odayaasha dhaqanka mursado karanle ee muqdisho sidaas daraaddeed waxaan ilaahay idinkaga baryayaa horta waqtigii aad soo geliseen iyo daalkii iyo juhdigii in ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro run ahaantii muddadii aan ka shaqaynayay macnaha arrimaha tolka ma aan arag saan macnaha maalin saan la iskugu yimid tolka ay buuxdhaafiyeen hoolka intaasna waan kaga mahadcelinayaa anigoo hadda soo gunaanadaya hadalkii insha allah waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha dhaqanka ee garabkayga taagan ee beesha mursado karanle oo ila soo gabagabeynaya war murtiyeedka baaqina waxaa inoo soo jeedin doona guddiga siyaasadda Dr. Muuse Cali oo baaqaasna inoo jeedin doona kulankii ka dhacay maanta magaalada London UK oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Karanle Hawiye ay isugu yimaadeen beesha Karanle mursada Karanle Hawiye waxay ka soo saareen dood dheer iyo falaqayn kadib waxay soo saareen qodobadan soo socota beesha UK waxay si buuxda u taageertay go-aankii beesha Karanle mursado Karanle ay ka soo saareen magaalada Muqdisho 22 Febraayo iyo 1 Maarso sanadkan 2014 magaalada Muqdisho kaas oo ay kalsoonidii dawladnimo ama hogaamiyenimo ay kala noqdeen madaxweynaha dalka hogaamiya waqtigan xaadirka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo u cuskaday taageeradoodaas u cuskaday kadib markii ay arkeen inuu lumiyay himiladii iyo rajadii dawladnimo ee ummadda Soomaaliyeed ay ka laheeday dawladda federaalka ee Soomaaliya markay arkeen inuu ku tuntay nidaamkii awood qaybsiga dalka ee lagu heshiiyey ku saleysan habbeeleedka kaas oo uu ugu xadgudbay kuna takrifalay beesha mursada Karanle oo ay ku laheeday nidaamkaasi awood qaybsiga isagoo oo madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud adeegsanaya hay-adaha amniga qaranka ee dalka ka jira inuu ku takrifalay awoodiisa siyaasadeed iyo hogaamiyenimo uuna ku shaabadeeyay ama uu ku calaamadeeyay beel dhan oo Soomaaliyeed inay tahay xaq jir ayna yihiin la shaqeeyaan shabaab taasoo beeshu u aragto xadgudub xuquuqdooda bini-aadanimo lagu xadgudbaayo iyo mansabkooda
soomaalinimo ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya. haddaba beeshu waxay ku baaqaysaa ayna u gudbinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka meel kastoo ay joogaan iyo ciidamada Amisomba inay beeshu si buuxda kalsoonidii kala laabatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inaysan wax wada shaqayn ah la yeelanin hadda wixii ka dambeeya.